waad ogtihiin aan aaminsanahay mas'uuliyadda idinka saaran wadankiina waan aaminsanahay inaad ogtihiin mustaqbalkiina iyo mustaqbalka dalkiina cid samayn lahayd idinka inay tahay waan aaminsanahay ogahay inaad fahmaysaan cid dalkiina sugaya idinka inay tahay marka ugu horeeya waxaan rabaa inaan iraado Kamaal iyo jaamacaddan iyo shacabka Suudaan iyo madaxdooda waxaan ugu mahad celinayaa in kumanaan arday ah oo Soomaaliyeed ay wax soo bareen markii adduunyada kale oo dhan ay aamintay Soomaaliya rajadeeda inay dhamaatay oo aanay xataa macno ku dhisnayn in wax la baro markii adduunyada ay aamintay in shahaadooyinkeena aan la aqoonsan in wadankeena aan wax lagu darsan in ardaydeena aan fursad la siin dalka Suudaan iyo dad yar ayaa aqbalay in la isku dayo in fursad cusubna la siiyo taasa waxay keentay maanta 1700 oo arday ah inay dhigtaan jaamacadda ama jaamacadaha wadankan taas ayaa keentay meel walba oo Soomaaliya kamid ah inay ka shaqeeyaan arday Soomaaliyeed ee ka soo baxday jaamacada ku yaala wadanka ama ha ahaato xafiiskeyga ama kan madaxweynaha ama wasaaradaha ama bangiyada ama ganacsi ha lahaadaan qof walbo idin kamida marka waa inuu ogaadaa halkan marka aad joogto sida aad u dhaqanto ayay qarannimada Soomaaliya u egtahay kulligiin waxaad tihiin safiiradii ummadda Soomaaliyeed haddii aad waxbarashada ugu wanaagsan tihiin haddii dhaqankiina ugu wanaagsan tahay haddii asluubtiina ugu wanaagsan tahay haddii aad aaminsiisaan walaalaheena Suudaaniyiinta inaan nahay kuwa ugu wanaagsan oo wax lagu darsado macnaheedu waxay tahay inaad bilowdeen dib u dhiska dalkiina sida aad u dhaqantaan ayaa laga fiirinayaa ummadda Soomaaliya ugu dambeyntii waqtiga oo yar awgeed waxaan idin leeyahay waa inaad u dhaqantaan si ka duwan sidii hore waa inaad iska dhaaftaan qabyaaladda waa inaadan aqbalinina inaad qof u shaqaysaan haddii aad qabiil u shaqaysaan waxaad bixiseen qayb xorriyadiina kamid ah haddii aad urur gaar ah ku biirtaan oo aad ururkaas sidoo u dhaqmo in dhalaan aqbashaan waxaad bixiseen maskaxdiina qayb kamid ah oo xorriyadii Ilaahay idin siiyay iska qaateen haddii la idinku shaqaysto waxaad ku noqoteen casri jaahiliga Soomaaliya uma baahno wiil ama gabal dhalinyaro ah oo qarniga 21aad qabyaalad ku shaqaysata Soomaaliya uma baahno wiil ama gabal dhalinyaro ah qarniga 21aad aqbasha inay u saxbiso madax laaluushi qabyaalad ka shaqayso Soomaaliya waxay u baahan tahay qarniga 21aad wiilal iyo gabdho aaminsan wadanka inay bedelaan diyaarna waa inay ku bedelaan dhiigooda iyo naftooda waa idin mahad celinayaa waa idin hambalyeynaya waxaan idinku dhiiri gelinayaa waxbarashadiina inaad ku dadaashaan dalka aad joogtaanna aad si wanaagsan ula dhaqantaan ogaada laakiin cidda laga sugaayo Soomaaliya inay dib u dhisto soo celiso sharaftii karaamadii ummadda Soomaaliyeed inaan la tartarno dalkan halka aad joogtaan si 10 sano kadib kumanaan arday ah oo dibadda ka timid Soomaaliya wax uga barato shaqadaas cid bilaabi lahayd waa idinka hadaalina hana isdhiibina qalbiga adkaysta kuwa idinkoo kale ayaa Soomaaliya xoreeyay xorriyadu waa haysataan idinka dhismihii kaliya la idinka rabaa waa maasantii